السلام عليكم صاحب بيال waxaa u mahad celinayaa saaxiibada ku xiran barteena Facebook iyo barteena YouTube ee Tawfiiq Films saaxiib bartaas daa ku cusubta waxaan jeclaanahay inaad na dhiirigelisid aad subscribe noo saartid waxaan maanta idin akhri doonaa fariin oo noo soo diray wiil walaalkeena ayaa rabnaa ayadoo maqal iyo muuqaal inaan meeshan idin kaaga soo deyno fariintaasna messengerkan ayaa lagu soo diray wiilka magacii wuxuu ku bilaabayaa sidatan maanta talo ayaa idinka rabaa walaalayaal magacaygu waa Burhaan oo jooga South Africa muddo waxaan wada soconay gabar joogta Muqdisho xiriirkuna wuxuu socday muddo 4 sano iyo 5 bilood xaqiiqdu waxay ahayd qofka kaliya ee dunida ugu jeclaa oo aan arko astaamaha alla ku manaystay hanaan iyo qurux alla siiyay waxaan isku baranay meel kamid goobaha la isugu yimaado oo ku taalo caasimadda Puntland ee Garowe intaan South Africa aan aadin ka hor xiriir qurux badan ayaa ina dhaxmaray heer uu wuxuu gaaray xiriirkuna aan nolosheeda ka dabaro waxbarashada iyo wax waliba ay u baahato waxay dhameysatay jaamacaddii aan ka bixin jiray balankeena wuxuu ahaa waxbarashada kadib inaan dalka dib ugu soo noqdo uu arooskeenu ka dhaco laakiin kadib maxaa dhacay waa su'aal jaamacaddii ayay ka qalin jabisay waxaan ku iri waan ku soo doonanayaa ayadana waxay igu tiri maya dib inoogu dhig waxaan ku iri qaali soo kuma balansaneen xilligan inaan gabagabayno waxay igu jawaabtay go'aanka adiga iska leh ama isu ama fasaxa tahay wallahi qalbiga ayaa dhaawac xun iga gaaray ma aanan ka filaynin hadalkaas wallahi sidee ay wax u jiraan maya waa saas ayay igu celcelisay kadib ayaan ku celiyay meeqabil ayaan sugaa sanad way badan tahay maya ayay igu dhahday kadib waan ka ogolaaday waqti markii la gaaray ayaan Garowe ku soo noqday markaan imid kadib waxaan maqlay inaan maalmo dhow kadib ay aroostay soo doontay nin kale oo ayada wada socdeen oo ay ila waday wallahi talo ayaan idinka soo raadsaday walaalayaal waxaan sameeyo ayaan garan la ahay ayadana telefoon xataa igama qabanayso waa gabadhii aan darteed safarka u soo galay wax walbana aan u soo sameeyay intii ardayad ee ahayd iyo intii aniga aan ka maqnaa maanta talo wanaagsan isiiya please walaal hadaad dhameysatay taladaada igu caawi inuu duceey inuu alle qalbiga ii qaboojiyo saaxiibayaal waxaan ka codsanaynaa inaan muuqaalkan aad sii share gareysaan ayadoo baay qoraal ahna insha Allah barteena Facebook ayaa soo dhigi doonaa qof walba oo tiradiisa jecel oo waliba qisooyinka noocan loo hayno waxaan rajay doonaa qaybta commentiga hoose inuu nagu soo reebo abaayadeen qaladkaas sameeysan waxa u rajaynaynaa inay ayadan nolosha ku guuleysato asigana waxa u rajaynayaa nolosha asigana inuu ku guuleysto waa saaxiibkeena Yuusuf Xasan Khaliif oo idin leh doornimo wanaagsan